looga hadlayo abaaraha ka jira gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee gobolkaasi sida warkan gobolka Sanaag oo ka soo diray wariyeena Cabdullaahi Xuseen Darwiish kulankan oo ahaa mid laga hadlayay abaarta ka jirta gobolka Sanaag oo maraysa heerka ugu darnaa iyadoo dadkii haraad u dhinteen xoolihiina ay ka dhamaadeen laguna qabtay maanta xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka heer gobol iyo degmada Ceerigaabo guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sanaag madax dhaqameedyada iyo waxgaradka beelaha Sanaag culimada diinta xubno golaha deegaanka Ceerigaabo iyo dadweyne kale oo tiro badan ba ayaa waxa ugu horeyn halkaas xubnaha guddida abaaraha ay ka soo jeediyeen hadal isugu jiray wacdiga alle hoga tusaaleynta heerka abaartu xilligan marayso oo halkii ugu darayda kaalinta looga baahan yahay in bulshada iyo xukuumaddu ay ka qaataan iyo waliba deeq wixii dhinaca xukuumadda iyo meelaha kaleba ka soo gaaray oo ay sheegeen inaanay maanta waxba ka hayn wixii horena waxay abaarta ka tireen aanay jirin sidaas awgeedna maanta ay ku baaqayaan in dadka haraadka u nafbaxaya noloshooda la badbaadiyo waxaana hadalloodii ka mid ahaa sidan xaaladda maanta ka jirta dalka ka jirta gaar ahaan gobolkeena ka jirta oo aynu wada ogsoonnahay inaynu isaga waranno kagana tashanno ayaa intii labeentii madax dhaqameedkii iyo maamulkii heer gobol iyo heer degmo iyo culimadii masaajidada la isugu yeedhay xaaladda jirta waxay maraysaa dadkii inay oon u dhintaan waxay maraysaa dadkii inay baahi kale ay u dhintaan waxay maraysaa dadkii inay sidii wax quustay markay xaggeena waxba ka waayeen oo xaggeena ay soo eegayeen oo islahaayeen guddiyo iyo abaaro iyo dawlad iyo cid iyo waxba xagga ay ka jira booyaduna ay eegayeen kuwii biyo-la'aantu haysay kuwii ay baad-la'aantu haysayna bal wuxuun baada ay eegayeen intaa markii la waayo dadkii inay aamusaan oo ay yidhaahdaan afkii baa juuqda gabay caruurii dhulka la dhigo xaaladda halkaas maraysaa waxa waliba Soomaalideena reer Somaliland waxaan ku ciriqaynaa waa neefka xoolaha iyo ninka baadiyaha jooga maanta intaas hadday israacaan inaguna ka dambayn mayno war xaaladii maanta waxaanu keenay qayladaan waxaanu keenay faramadnaan waxaanu keenay wax inaan maanta nin walba loo baahan yahay waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubno dhinaca madax dhaqameedka beelaha ah waa dhimanayaan sayidina maanta waxaan ogahay anigu ninkii ugu xoolo badnaa oo ugu ariga badnaa baa ugu geeri badan anigu hadda ilaa 6 qof baa la sheego dhintay oo ciyaal ah waxaan leeyahay hadda reer Sanaag oo joogtaan iyo hadda ganacsato tihiin intaan la idinka qaadin hor Ilaahay geeysta dawladda waxaan leeyahay labada sanduuq oo guddida taakulaynta abaaraha oo Hargeysa joogto aad sanduuqa u samaysateen waa koow sanduuqa labaadna waa kii horumarinta labadiiba Hargeysa yaali waxbaanu ku leenahay hadda reer Sanaagna wixii aan xaq u lahayn iyo sadaqadba waa kaaga baahanaa ugu dambeyntiina waxa kulankaasi hadalka isaga dambeeyay ku-xigeenka ahna kusimaha maayirka Ceerigaabo Saalax Ismaaciil Cabbaase iyo ku-xigeenka ahna kusimaha badhaysaafka gobolka Sanaag Naalay Axmed Jaamac waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan xukuumadda oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo dhibaatadan abaaraha qaabkii loo wajihi lahaa waa u fadhiyaan iyagana waxaanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu bal ummadda wixii haddii aad wax u haystaan dee u soo dedejiya ducada ilaahay loo ikhlaas yeelo ilaahay markaynu barino dadka xataa la leeyahay waxbay keenayaan iyo waxba laga rabaa marka ilaahay sakhro baynu ka helaynaa waxaynu rabnay ducada ilaahay u baynu mariyana ilaahay u baynu maraynaa hana la isaamaxo ilaahayna ha loo noqdo waqtigan adag ee hadda aynu ku jirnana ilaahay u bay naga saari karo wax bilaadan wax ka qaban karo maaha waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish waa Bari TV Ceerigaabo